kusoo dhawaada darsigii saddexaad ee wordka. darsigan waxaan ku qaadan doonaa waxaaynu markaynu doonayno inaan alphabetiska kala horeysiino qoraalkeenan oo kale ayay ama siday ugu habboon yihiin uga dhigno ee u kala horeeyaan alphabetisku. masalan markaad magacyo qoraysid sidoo kale jadwalo aad magacyo ku qoraysid fara badan oo kale waxaad u baahan tahay inaad xarafka ee magaca ka bilaabo ugu horeysiiso uguna dambaysiiso xarafka z. markaasi ayna hawshu inoogu badnaan oo aad mar walba usoo koobi gareen oo aad isku xigsiin magacyadii si automatic waxaad samaynaysaa wada highlight garanaysaa kabacdi waxaad tegaysaa halkan sort la yidhaaho. markaad sort tagto halkan waxaad dooranaysaa ascending haddaynu nidhaahno waxa weeyaan alphabetisku siduu kala horeeyaan ayuu u isugu xigsiinayaa ama ugu habeenayaa. marka iminka sandin marka nahno okay nahno iminka halkan waxaa horeysa sister ba horeysa waxaa noqonaysaa in ugu horeysiiyo wixii ka bilaabmaya e haddii aanu hayna wixii a b baa ku xigta markaa waa inuu brother ugu horeysiiyo ka okay marka kaasi. haddii aad doonayso inaad cagsiga ka bilowdo oo alphabetiska halka u dambeysa kasoo bilowdo oo xag kale cagsi ahaan aad u raseysana si slag baad xodoranaysaa halkan sort way tegaysaa waxaad ka dhigaysaa descending markaad ka dhigto waxaad leedahay okay marka cagsigii ayuu ka dhigayaa. intaas ayaan kaga imanaynaa. kabacdi halkan waxaan tegaynaa insert optionkan ama tabkan insert. guud ahaan waxa weeyaan waxyaabaha doonayso inaad soo geliso warqadaadan oo kale. iminka intan waxay noo xisaabsantahay warqada wax ku qorno oo wax marka warqadan waxay doonayso inaad soo geliso hadday tahay table hadday tahay sawir hadday tahay video wixii kasta oo aad u baahan tahay inaad soo geliso ayaad hadday tahay linki ayaad halkan insertiga kasoo gelinaysaa. marka ugu horeyn halkan waxaa ugu horeysa cover page weeyaan. marka aynu intaasi kaga soo gudubno hometa waxaan tegaynaa optionka labaad ama tabka labaad oo lagu magacaabo insert. markaynu insert tagno halkan waxaa inoogu yaala cover page markaynu click siino waxaa inoo soo baxaya pages badan oo diyaarsan ama cover page diyaarsan ama jaldiyo kolba kan doono nidhaahno oo jaldiyana waa la samayn karaa buugta jaldiyano kale oo looga samayn karaa jaldiyo research ama waxaad diyaarinaysana waad u samayn kartaa cover page. marka tusaale iminka inagu kanoo kale ayaan odhanaynaa markaynu kanoo kale nidhaahno title baa inoo soo baxaya ka masax baad ku qortaa cali oo kale. marka cover pageka isagoo faahfaahsan oo qurux badan waxaan idinka samayn doonaa hal video sida cover pageka loo sameeyo isagoo qurux badan. markaasi aan intaasi kaga nimaadno waxaan samaynaynaa iska dhidid garana. marka intaasi kaga nimaadno cover pageka waxaan iminkana u iman doonaa blank page. dabantana blank page u iman aynu qoraal ku qorno qoraalkan yar qorno. markaan qoraalka yar qorno kabacdi uu saaba pagekaasi inoogu soo baxo qoraalkaasi waa kan qoraalkii inoo soo baxay. marka waxaynu sameynaynaa qoraalkaaga waxaad tegaysaa muxuu ahaayey dhammaadkiisa si uu page labaad kugu furo. marka qoraalka dhammaadkiisa markaan saa u tagno waxaad odhanaysaa blank page. marka waa kan pagekii labaad ayuu inoo furaya ina geenayaa. waxaad kaloo samayn kartaa qoraalkaaga halka u dambeysa markaad tagtana muxuu ahaayey saas marka halkaa u dambeysa uu joogo inter waad kusoo degi kartaa ilaa ayaad imaanayso pageka labaad. marka muhiimadiisu blank pageka waa intaasi. muxuu ahayo kale halkan markan page break waxa weeyaan qoraalkaagan ayaa marka doonaysa inaad labo kala jabiso. iminka halkaas kale markaan click siino aynu taabano page break qoraalkaagan laba page ayuu kala jabinayaa. marka waa taa qaybta horena xaggaasi raacday qaybta mar xaggan bay raacday. marka iminka uma baahnin control z ayaan kusoo noqonaynaa. marka intaasi aynu kaga soo gudubno qoraalka waxaan imanaynaa pagekan cusub si aynu table u sameyno. taabanaysaa table ama add table. markaad add table taabato sidaas ayaad mouseka u dul qabanaysaa inta row iyo inta column aad doonayso. marka iminka sidan oo kale nidhaahno intaasoo column intaas row ayaa noo soo baxay. haddaba hab labaad ayaa jira oo isagana loo sameeyo tableka aynu kaga noqono control z si aynu habka labaadna usoo marno. insert baad tegaysaa sidii leg
halkan ay ku qoran tahay insert table ayaad click siinaysaa inta row iyo inta column aad doonayso ayaad ka dhigaysaa marka tusaale iminka waxaanu ka dhigaynaa oo kale 5 column 5ta column boo deenina halkan oo kale waxaan ka dhigaynaa ama 5 bay ka dhignaa tiro musaafir 5 baan ka dhignaa okay marka waa ka inoo soo baxay 5 column iyo 5 row marka qoraal baan ku soo qorayaa marka ka bacdi aynu haato wanagan qoraalkii ku soo qornay markuu saas inoogu soo baxo iminka waxaan ku qornay magacyadii nameski halkan waxaan ku qornay maadooyinkii iyo grade-kii marka iminka grade-kiina waa kon ardaydii maado walba intii ay ka keeneen oo kale tusaale marka doonayso inaad iminka qaybtan baa siyaadeen ugu ah qaybtan kale marka column-kan iyo waxa nagu siyaadaa row-ga marka doonayso inaad delete gareyso waxa sameynaysaa sidaas ayaad u highlight garanaysaa markaad highlight gareyso halkan waxa ku soo baxaya page layout waxa tigaysaa delete waxaad ka dooranaysaa delete column marka saas ay ku delete garanayaan waxaad kaloo sameeynaa row-gana aan iska delete gareyno isagana siyaadada ah isna sidii select delete ku dooranaysaa marka waxaad dooranaysaa delete row marka saas ay ku delete gareeyay marka iminka page kasta ugu dul dhufano waxa inoogu soo siyaadiyo laba option ay nagu soo siyaadiyo optionadeena hore ama tabskeena hore design iyo layout ay nagu soo siyaadiyo marka meesha banaanka click sinana way iskaga tagayaan marka labada option waxa weeyaan markaad click siiso table-ka ay ku soo siyaadiyaan markaad meel banaan tagtana way ka tagayaan marka labada option ayaa lagu shaqeynayaa marka iminka waxaan sameynay click baan siinay markaan doonayno inaynu halka waxa la yiraahdaa insert above halkan waxa la yiraahdaa insert below halka markaan doonayno in row dheeraada ku soo darno ama row dheeraada in horta markood ku darnaa markaan soo highlight gareyno waxa sameynaysaa insert above fadlan row dheeraada ayaad ku soo daraysaa ama siyaada marka aad ku soo darto waa kaasi rowga siyaada ku soo daray control shift baan oranaa marka waxaan oranaynaa hadana mid ka hooseeya ayaan doonayna ku soo darno insert waxaanaysaa above insert below sorry hadana waxaanaysaa control shift ay ka noqonaynaa marka waan isla faanay rowga sida lagu soo darayo marka doonayso inaad row u dhaxeeyo aad ku soo darto jadwalkaaga dhexdiisa ku soo darto marka doonayso column inaad ku soo dartana waxa sameynaysaa iminka column kan oo kale inoo highlight gare ka bacdi waxa sameynaysaa waxa tigaysaa kan ay ku qoran tahay insert left bidix kaga soo dar column dhameystiran oo maran marka waa kaas bidix ku kastaraya control shift ay kaga noqono right marka leedana waa sidii oo kale marka waan isla fahnay intaasi marka doonayso inaad wax ka bedesho jadwalkaagan waxa sameyn kartaa ama table-kan halkan design-ka ayaa tagaysaa marka waa ka marka doonayso inaad wax ka bedesho kale ama midabada kale ka bedesho halkan oo kale midabadii oo kale ka bedelo marka midabadii kolba kii ku qanciya ama marka waxaad ku shaqeynayso wixii ku haboon ayaad adeegsanaysaa marka intaasi kaga nimaadno control shift ay kaga noqon marka doonayso inaad background-ka table-kan aad midabayso halkan baad taabanaysaa midabkii aad doonayso ayaad ka dhigaysaa oo kaasna in ka soo noqono inta waxaan rajeynayaa inaan si fiican iskula fahanay kale marka doonayso qoraalkaaga align right align left waa kuwan iyaguna casharadii hore ku soo qaadanay halkaas baad click siinaysaa marka doonayso inaad align ka dhigto marka doonayso iminka inaad lead-kan u kala dhaxeeyo tusaale aan ka qaadno select-ga markaan doonayno inaynu name iyo cali inta u dhaxaysa aynu ka saarno lead-ka ku yaala saas kale marka select garayso waxaad taabanaysaa layout-ka tigaysaa ka bacdi waxaad tigaysaa merge halkan ay ku qoran tahay marka waa kaasi isku daraya halkan oo kale split ku qoran tahay kale iyadana waad adeegsan kartaa kolba waxaad ku shaqeynaysaa hadii ay ku haboon tahay waad adeegsan kartaa marka insha Allah waxaan rajeynayaa in intaasna isla faahnayn ka soo noqono qoraalka laftirkiisa waxa sameyn kartaa midabkiisa inaad ka bedeli kartaa sida casharkii hore aan ku soo qaadanay waxaad tagaysaa home marka tagto halkan ayaad ka bedelaysaa midabka casharadii hore aan ku soo qaadan qoraalka marka qoraalku si isma bedelayo si weeyaan halkan baad ka bedeli kartaa waxaad ka midabka doonto ayaad ka dhigi kartaa waxaad ka bedeli kartaa farta nooc ay tahay sidii hore u soo qaadanay oo kale marka waa kaasi marka iminka intaasi ayaynu kaga soo gudbaynaa table-ka marka aynu intaasi kaga soo gudbino waxaynu soo gudbi doonaa picture sida loo soo geliyo word-kaaga picture aynu
samayn doonaa markaan doonayno inaan delete garayno jadwalkan ama tablekan waxaan samaynaysaa saa highlight garee kabacdi waxaad tagtaa page layout delete dabatan waxaad tiraahdaa delete table marka dhammaantii wuu saas ku delete garanaya